ورحمة الله تعالى وبركاته. صومالي وين أذاني سلام الباجوكتين وحنا وسلامي مر لبض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحرر الصومالي ذا مول باجوكتين شنت قارضات إن عرير اللي بداقو إن بقى حدثين قدروا يوتيوب فرو أنا يوتيوب كي وافرتي قدر أوفيشيال ما شاء الله وذلك دونتين تيك توك كي حرين هاي maalmahan arrin waxaa jirtay oo socotay wallahi Soomaali horta waxaan leeyahay aad u maasantiin wallahi marka arrintan ka hadlay waxaan ogaaday inay Soomaali aan garab taagan tahay meel walba ay joogaan ay Soomaali caawinayaan waxaan iga codsanaa marka koowaad iyo marka labaad YouTube-kayga sad kor igu qaadi lahaydeen ama TikTok kor igu qaadi lahaydeen insha Allah aad dadaashin aad muujisin أنا يوتيوب إن سوفي لما تكتب سوفي لستو استر كل بح معيني ما أفلك عادين عينه ومقوره because تد وحنا يعيش عنان إذا لكن قرش هذا يأخلي أياسي وأنا قف لك وعلى قفت أصلا وقف حيتري قدر أنا وحنا حالي فيديو عن كسر هذي قفت وقف أنه هو ذي لك مرنا ولا شيء يجوين وأنت وحشمت أو هاي سمان قرن وحيتري قدر صدق سنو أيوجرا شغل أنا إيجا متشرو نصد السنة جرنا ويلكي كوين حتري محاني يود بدأ مرك حكتنا لايف إني سوق شو وحيالا قلدنا يكون هذا شنا دمير كذا سيء أنا هرت معايا يو لكن كستي وحن كهذا حتى هاي بباطل يقول سميستي يسدي إلى رقمتي سومالي هدانا هنا وحج عليهن هرت مجعل سومالي هدانا قردرت مجعله مروا بحج عليهن إني أركان نينكي قردران نينكي قردرني نين قردران عد هور Soomaali أدانا عد قرب سينا مالان أنا وحان أوغادي مركو روح إسلها قدروا أدول لغا قردرين يهي حدنا يا مانت قرد هذا كو قادي دونا أرنت مكا قول عدي هبين وحاد عدي أرنت مكا قول عدي وسائل لك عدي إله بري إلهي وحان رحي أدا محان مانتا عدالة قرتي أدام كودي بنايا الله سبحانه وتعالى قر لو ديبتنا wax ka wanaagsanna ma lahan arintii yar aan ka soo hadlay inta soo Soomaali ah inta soo qalqi ah oo shanta qaarad ku nool ah oo qof walba garabka taagan ilayhiin maxay yihiin isweydii adiga waxay tahay waxa waaye Soomaali ma ogolo dulmi ma ogolo qof islaam in la dhibaateeyo xalay gabar walaashay Firdawso way leefkiga soo qabatay وأوضح هذلني خوف كانوا حافي عن خوف كانت إنه أوقف من كرو أنا قبل ولا شيء أوقف صومي كدب لايفكي أرميه يجور يستي حقيقة جرت أول شيء كي واحد عاوش شيء كي كدبنا ولا شيء نسهريوكي أرد صوغ شيء ولا صو هذا الشيء قول كان صوغ فلني خضروا وحيوتري ميان كقفسن كرا أمكو ما قفسن كري وحن رهي نيك اللي بعطيسن عليك واي ninka dibka loo geystan aniga waa haddana waxaan diyaarahay Soomaali waxay goosay qof walba ugu inaan diyaar u noqdo okay waxay igu xukumeen marka labadooda video dambo muso bus garin kartid marka soo hadli kartid hadalkooda inaan ku jizaarna ma rabo hadalka inaan qaata ayaa wanaagsan Easter live xalay ee soo gashay live taasi ka caytimis ilaahay kugu dhaariyay أنا وحنا قاتل نينك وحنا هاي قاتل قرتيو حتى هذانا في الجادن يوتيوب كي كسر عيتم يسوع هرت أنت سلوه وان كرا إنه تهاي قفض الموجودة أوكي مها يا صهري مها وحويها ولي قانا ومن عذاب هرت عدين عذاب شقي سنة ونين عذاب شقي سنة أنا هرتكم مضى بضيانا يوم وحويري قدر سام واي ناو قرصدي naagtii ka tagtay anay xumaantiisa banaanka ma keenin gabar had islaam uu gaaris ku guursaday waxa jirta inuu guur ay wadaageen laakiin mar raba arinta inaan banaanka keeno oo si qaldan si bil aadin ka bax gabar oo la dhaqmay laakiin mar raba gabar walaashay Soomaaliyeed xumaanteeda banaanka ma keenay wallahi xumaanteeda banaanka keenin ilaahay wuxuu yiri ayb astur boqol cibaadada aan sturaya marka Soomaaliyeed maadaama aniga ii soo kulmateen oo garab taagan tihiin oo marrab arabtiin hel iyo heeg taagan tihiin waxaan marrab in leeyahay aad iyo aad u maasantiin marrab waxaan leeyahay aad u maasantiin
waxaa jirtaa qof markuu xilli adag uu ku jiro qof ayaa soo garqabtaa aan laba qof ay soo garqabtay insha Allah iyo ehelkeyga oo marwalba hel iyo haar u taagan inay garab taagan yihiin oo marwalba ay rabaan meeshii horumarkii ay ku jiraan iyo meeshii dadnimadeeda ay ku jirta ee la sidoo kale familkeyga ehelkeyga iyo Soomaali Nabi Maxamed meel walba ay joogteen aadan iga mahadcelinaya Soomaaliyay qof dhibaateeyo ama caytimo horta asay dhibaysaa Esther haday dhahdayna ilmiheygu wuxuu jiray anu isoo damcay horta Soomaalina way ka warhaysin abaalka u galay iyo abaalka u soo sameeyay qof bil hooyo aan ka dhigtay miyay kula tahay inaan damci karo badimay kari mid xigtana muhalif inuu soo galo soo aflagaadenayo aniga ma la ficiltamaayo because ani maanta Soomaali Maxamed wuxuu igu gartaagan waxay yihiin qoftaas aan cayninin iyo ninkaas aan ku dabadaynin because ninkaas waxa uu asaas dhintay waxa qof dhintana waxba laga soo qaado dad kale waxay dhahan qadaro maxad la iimaysay dhahan ilana waa iska taqaana hadda dhima lahan wixii soo dhacay soo dhaceen balse marwalba waxaan rabaa marwalba iida dulmiga wadaa ani hadda waa iska aamusanahay because waaba xishooday because qof dhahayo anu isoo damcay qof dhahayo xal jiray saan waaye horta Esther aadama ka xun horta Ilaahay ma abuurin waa hooyo Soomaaliyeed caruur haysata waxa fiican inay xishooto xishoodkan waa iimaanka barkiisa qofka bini'aadinka ani wax in badan waxyaalo badan waxa jirta Esther aniga aan ka hayo ribin inaan banaanka keenin had qoftaas aadama ka xun Ilaahay horta ma abuurin xishoodna tiila lahaana waxa weeyaan eber damiirkina eber ka noqday Soomaali garanay damiirkan qofka dhintana wuxuu yahay malahan anina lama in la aytimo waan ka faacweynahay shal waan soo garqabtay maantana wili mid kale aro inaan ka hadlo qabiil horta wax ma taraayo waxay tiri qadarow markay YouTube-ka iga qaadatay oo ID-ga iga qaadatay ID-gan ka soo qaatay kadib waxay tiri qadarow YouTube-ka ana iskale TikTok-ka ana iskale tiri adina gariya tahay anina ogaadeenahay maxaad ka qaadi kartaa balse ma iloobin inay Soomaali jirto iyo dad islaam ah inay jirto waa ilowday aniga wallahi isma lahayn horta nin waxaana hooyis u duceysay ma sha Allah isma lahayn intaas Soomaali ayaa ka cabi doonta ama heli doonta ama inta Soomaali ayaa wax ka faa'iin garab ku siin doona isma lahayn balse Ilaahay ayaa iga jizay oo isiiyay abaal marintii marka dadkii igu faanayso waani dadkayga igu faanayso waa dadkii idil dhashmanta ay caabina garab taagan Soomaali garanay igu faatimayso markay leedahayna YouTube-keyga ana iskala day Soomaaliya joogta shalay meesha idil gaartay Soomaaliya gaarsiin anina way gaarsiin karaan Soomaali garanay Soomaaliyay inta dulmiga geystana dacwadeeda ani meel baa ii taala waxa waay Allah subhanahu wa ta'ala ii taala anida meesha ku bixina mid kale nanaclada iyo hadalka badan ay ku soo hadlayso qof weyn way mixshoonayso arruur ka saqaylan qof inuu damir leeyahay fiican hadii cimr qaadasho ay leedahay leef inay soo gasho YouTube ay ka soo hadasho meedina qadar meedinayn Soomaali nin walba ka warhaya mid kale ayaa laga waalin waa laga waalaya aniga haddaan ilmeeyna alxamdulillah nirag baan ahay oo maanta aniga dhibaatadii ayaan ka hadlay sida camal de anima dhahaydii xal jiray way damcayo taadi shalay dhig ka socayna damcayga ma ka galay run baa fiican mugtahay Soomaali garan damcayga ma ka galay shal ninka waxaan aniga odoo dhig baxayso ku garab taagnaa shal oo ilmeynaysan ninku ka garab taagnaa ayaan ahay damacso habay iyo damcayga ka galay ma ka galay run baa fiican mugtahay damcayga ka galay marka waxa waaye isku xisho waxaan isku reebo ibar baa tahay aqrina waxa weeyaan wax la heli karo anoo adig dhalli karto oo wiilkaaga la egyahay ayaan marmar qaar marka social media soo fiirsana hadalada xigmad ku hadlaa hadana yar imay hataa xaraga xigmad ku hadlaa ogaante qof dee waxa weeyaan dee dharka turtana ta ilaahay baa dharka isku xiri kara dharka isku celin kara ogaanteen marka waxaan rabaa anoo hadda soo gabagabeynayo Soomaali horta aad u mahadsantihiin sad ii garab taagnaatiin maanta meesha aan taaganay inay gaarsiisan mid baan in raacsiyo aniga cadaaladeeda Ilaahay baa ii keeni doona
soomaalina way garab taagan yihiin wallahi soomaali way qadiyad badan yihiin soomaalina ma jecladii nin dhibaataysan iyo nin saa wax la yeela mana ogolaan doonaan marka insha Allah Soomaali waxa la YouTube aan furtay YouTube-kan waxaan ku furtay inay madaxiina dartiisa shalay wax ma haysanin shalay wallahi YouTube ma TikTok ma lahayn maanta nin waxaan meel laga socon karo marka waxa waay wax walba inay dhiirigelintiin ayaan ku helay Soomaali garaneen midda kale Soomaali aad u mahadsantihiin saad ii garab taagantihiin mar walba qof iska dalmaayo midda kale hadalay ku hadlaysidii waa hadal micnaha qof bil aadin aqli leh maskax leh qaadanay ma jirte ma fahantay qof qaadanay oo aqli leh ma lahan haday tiri qadar ilmo iga xoog raba ama ilmo sakta iga tusayna ku guri ku haystaan yeen ka xoogin hadaan ka xoogin guri ku haystaan iyo ka xoogin ma fahantay marka waxa la istir kulli baxay dharka ayaa toortay dharka Ilaahay kugu xiliyo mid xigtana waxaan ku leeyahay tahay waxa weeyaan inaan kala ficiltimo waa igu qaad waxaan kala ficiltimo shalay waxa taa ogsanay in hada social media soo biriso waxa tan waa shay kale aniga laakiin qof reerkiis dhaqan waay ninkeedana dhaqan waay waxaan kala hada qalad reerkaaga shalay gacanta iskaga burburisay aad dhaqan weys maxaan marka aan kala ficiltaan kala hadla oo nin rag xun oo boqolow ah aan reerka xun ka burburiyay saan u taagnaa waxay ogaatay ninka inuu miskiin oo maalin way aqli badin wax walba ogsooyin marka waxa weeyaan aqliga qof walba la iska nasayo aqligaaga Ilaahay ku soo celiyo wax kale kuma dhigi karo ama waayelnimo ka hadamaad miyam ku dhigi kari marka waxa waaye xitaa xishad leedahay wixii aan sala soo marnay ayaad fiirin leed Soomaan garan xishad ma lihid Ilaahay waxa la jiray uma kama baqaysid waxa waaye afkeegana iska leh ana daldalma sadajirna ani jawaabta waa lagu hayaa صاحتم جوابته لو هيا marka waxay leeyahay Soomaali Maxamed aad u mahadsantiin sad ii garab taagnaatiin sidaad mar walba ii dhiirigelisan aad u mahadsantiin mar walba waxa leeyahay madaxiina kor ahaado mar walba waxaan leeyahay waxay tahay qof dhibaataysan ama murugsan ama laga gardanay hadaa aragtiin xal garab taagnaado Soomaaliya gar iyo qaadanin gardari iyo qaadanin anina marka shaxale balanta ani aan qaadana oo walaalihi balanta aan ka qaadan waan ka soo baxay laakiin dhaanta kama soo bixin nimba goos ka caytamaya idar geeska ka caytamaysa sax kaligeena ana wallahi waan ku filanahay waxaan ugu filan waxay tahay garbihayga dad islaam ayaa gurtuuran ogaadeen ma dhahayo habi ma dhahayo ma jirta ma dhahayo Soomaaliya garbkiga tuuran hadalay ku hadlaysan waxa fiican inay xigmad leeyihiin inay qofka ku soo jeedin karto marka aan Soomaali waxaad garbkiina nahay garbkiga tihiin aadan jecel yahay mar walba waxa waaye insha Allah waxaan rajeen doonaa horumar marka fiicnaa sameyn doono anina waa ugu jawaabaya maxaa wali waxa u jecel dadka islaamka ugu jawaabay ana oo jawaabin ayaa dadka islaamka xalba ugu jawaabin qof muslima wax walba uu dareesan yahay ina meeshan ay qaldan tahay ana waa wax walba qalad ida la ana hal qof qalad isoo markay because waxay og yihiin qofta awaalkan u soo galay iyo waqtiga la soo qaatay marka waxa weeyaan Soomaali Maxamed aad u mahadsantihiin meel walba aad joogtiin waxa leeyahay mar walba garabkiina ahay garabkiga tiin إني وحين وهاي سأي قربتاني إن شاء الله هذا محلي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا سلام عليكم